arayo qorshaha wasaaraddu ay ku doonayso in sanadkani gobolada koonfurta ee bartamaha Soomaaliya laga sameeyo hal imtixaan oo midaysan ka oo laga qaadayo ardayda ka qalin jabinaysa dugsiyada sare ee dalka. guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka ayaa wasiirka waxbarashada, wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dawlahaasi isku mid ah u weydiinayay su'aalo la xiriira qaabka ugu wanaagsan ee sanadkani wasaaraddu ugu guuleysan karto inay qaado imtixaan midaysan 24 sano kadib iyo cabashooyin dhawaan guddiga arrimaha bulshada ay u soo gudbiyeen dalladaha waxbarasho ee ka jira dalka. gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa tilmaamay in wasaaradda iyo guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanku ay isku afgarteen in sanadkan la qaado imtixaan midaysan isla markaana wixii farsamaha ay si wada jir ah uga wada shaqayn doonaan. falanqeeyay ama looga hadlayay ama la dhageysanayay arrintii ku wajahneed imtixaankii centralized ahaa oo muxuu ahayto waayahan arrintiisa ay socotay oo dalladaha iyo wasaaradda dood dheer kadib markaan iswada dhageysanay arrintu waxaanu u qaadanay oo inaan dhageysanay oo aan u aragno in muxuu ahayto runtii mabdiyan aanu muxuu ahayto isku waafaqnay. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Qadar Bashiir Cali oo dhankeeda la hadashay warbaahinta qaranka ayaa sheegtay inay tahay guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed in 24 sano kadib dalka laga qaaday imtixaan midaysan. waxa sharaf inaan dadweynaha Soomaaliyeed, waalidiinta, ardayda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego in 24 sano kadib in xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya ay gaartay in imtixaan centralized ah la qaado oo wadanka loo qaado. waa mahad weyn, waa guul weyn ee dawladdeena u soo hoyatay, waxaana mahad gaara iska leh walaalaheen oo dalladaha waxbarashada oo intaasayto wadanka oo burbursanaa waxbarashada soo waday oo kaalin xoog la ka qaatay dhalinteena iyo barbaarinta dhalinteena ka qaatay. 3 bisha May sanadkan ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qorshaysay in la qaado imtixaan midaysan kaasi oo laga qaadayo ardayda ka qalin jabinaysa dugsiyada sare ee dalka, taasi oo meesha ka saaraysa cabashadii ay qabeen ardayda Soomaaliyeed ee la xiriirtay inay galaan imtixaano kala duwan marka ay ka qalin jabinayaan dugsiyada sare ee dalka. Nasra Bashiir Cali, TV-ga qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.